waxay keeneen TPLF hata khidad kale afayeenka TPLF Getachew Reda iyo taliyaha ciidamadooda Tadaso Wareda oo maalmahan warbaahinta la hadlayay ayaa fariimo aan horey looga baran u diray shacabka Axmaarada. Getachew Reda oo shacabka Axmaarada fariin u diray ayaa yiri waanu dhimanaynaa balse wada dhalashada Axmaarada iyo Tigreegu way jiraysaa. ma jirto wax gaar ah oo naga dhaxeeya waa inaan xiriirkeena adkaynaa sidaas ayuu Getachew Reda maalin dhaweyd ku doodiyay fariinta haddaba saraakiisha Tigreega ee dagaalka hogaaminaya ay shacabka Axmaarada u direen ayaa u dhigan sidan waxaan u soconaa inaan xayndaabka cadowga jabino qorshaha dawladda dhexe waa inay isku jabiyaan oo ay wiiqaan awoodda dadka walaalaha ah ee waqooyi ee Tigreeg iyo Axmaaro sidaas ku doodeen waxay leeyihiin marka abi wuxuu wadaa markaas inuu isku dilo dadkeena walaalaha weligeedba soo wada noolaay Axmaariya Tigreeg bay leeyihiin saad darteed isku garaaco marka waa inaan iska fahanaa bay ku doodayaan imika oo aynu wasi wada jira ula dagaalana marka waa kelmado beer la xawsi ah oo haatan khidada iyo khiyaanada ay haatan bilowday TPLF weeyaan oo ay doonaysaa in Axmaaro garab ku helaan kadibna si wada jir ah ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan uga takhalusaan xukuumadda Abiy haddaba sanadkii hore haddii aynu dib u eegno markii ay maqaleen dib u qabsadeen TPLF-tu waxay ku goodin jireen inay xisaab ugu harsan tahay Axmaarada oo ay ka jaran doonaan baaqi kaga maqan yahay hadaladii Getachew Reda xilligaasi waxaa ka mid ahaa baa layidhi waa cadowgeena soo jireenka ah xoogaga Axmaarada waxaa noogu laaban xisaab yacni argoosi dhiman u socda bay ahaayoo doonayeen inay Axmaaro gam ka dhigaan haddaba dadka siyaasadda falaqeeya waxa ay sheegayaan horta nimankan waa nimo aad u moogta siyaasiyiin runta ma kala sheego markii horena nabad ay qaadanayeen waxay ka wateen moogtahay dhako imikana dhaka kale ayay wadaan oo waxa intaaba doonayaan marka inay Axmaarada ay garab ka helaan oo dib u walaalo noqdaan oo moogtahay ay marka si wada jira ula dagaalamaan Abiy oo meesha laga saaro arrin la yaab leh baa jirta oo xaggii warbaahinta ayaa haatan weerarka uu ka socdaa horta dhinaca Axmaarada waxaa jirta qaar badan oo wariyaasha ka mid ah oo kale oo wariyaasha madaxa bannaan oo marka had iyo jeer u doodaya in Axmaaro aanay u dagaalamin Abiy oo ay ka hadhaan haatan laakiin subtida loo qabtay wala xareeba la yiri qaar badan gabadha Maysa Maxamed la yiraahdo ka mid ahayd oo moogtay mar dhaweytoole warbaahinta la sheegay in la xiray gabadhaasi oo la dhaadhiciyay rag badan ayaa haatan oo kale iyagana la xareeba la sheegaya oo u doodayo le hadifaacina xukuumadda Abiy fikirka Axmaaro ma aaminaysa ayaa la isweydiin karaa oo TPLF markaasi ama Tigreeg intay la saaxiibaan xukuumadda Abiy ma ka takhalusi karaan su'aashaasi ayaa la isweydiin karaa taasi haddaba waxa weeyaan jawaabteedu dad badan ayaa haatan ku doodaya Axmaarada inay markaasi kuwa xaq jirka ay Gondar iyo Gocham degani inay marka isku u siman tahay marka arrinta moogtahay xukuumadda Abiy iyo TPLF labaduba wayna dileen wayna ciqaabeen bay aaminsan yihiin imika faano moogtahay waa ka abaabulkooda xukuumadda lahayd soo kaco u dagaalama wadanka Gondar iyo Gocham Axmaarada degan way diideen kuwa xaq jirka laakiin kuwa haatan garab taagan xukuumadda waa Axmaaradii wallo ama muslimiinta ahayd moogtahay inta walla degan kuwaas ahaa dawladda raacsan laakiin kuwii kale way diideen waxaana haatan aaminsan yihiin leeyihiin way diideen xukuumadda Abiy ka soo horjeedaan waxaana ku doodayaan marka in la dagaalamo in tahay dagaalka la sii wado dagaalkooda haddaba si kasta ha ahaatee TPLF ama Tigreeg inay la heshiiyaan way u dhowdahay bay ku doodayaan dadka siyaasiyiinta moogtay aad ugu hurgalaarima Itoobiya waxa la leeyihiin haatan waxay doonayaan Axmaarada horta bal Abiy ba wax walba kaga daran inuu dhaafo ayay doonayaan waayo waxay doonayaan iyagu xagga Christianity inay horumarto moogtay Itoobiya lagu xukumo oo moogtay waa kuwii kaniisadaha iyo wax ku dooday bariyay dhaweyto inta talaabada laga qaadin bishii saddexaad iyo afraad iyo moogtay sanadkan ku jirno waa kuwii moogtay kaniisadaha loo doodo iyo waxyaabo noocaas la warwareegi jiray meelaha iyagu marka waxay aaminsan yihiin xagga diinta orthodoxka aad ugu dhegsan yihiin marka waa isku mid moogtay waa isku diinta qolyahan Tigreegana marka haddii waxay door bidayaan baa leeyahay marka Tigreeg marka u soo noqdo ayaa u dhaanta oo moogtay si walba taas ayay marka Itoobiyaanimadii hore lagu sii taagnaan karaa bay aaminsan yihiin sadarteed waxa jirta warar markaasi sheegaya in bishii afraad meelahaasi ay jirto in Axmaarada xaq jirka ah ay u diratay baadariyo oo ay tageen markaasi dhinaca Tigreega
oo ay markaa wadahadal la soo galeen in axmaara iyo tigre markaasi dantooda iyagu ay ka tashadaan. warar noocaasaa jirtay bishii afraad barnaamij noon kaga hadalna maana berigaasi oo ay shir qarsoodi u dhex maray markaasi qolyahaasi xagjirka axmaarada oo baadariyada dirtay. aduu si kasta ha ahaato haatan dagaalku waxa uu markaasi sidii ay moodayeen TPLF-tu marka iminka weerarka cusub ee saddexaad ay bilaabayeen arrinkii waxba iska bedelay. waayo waxaas lahaayeen Eritrea afweerka u bixi maayo abi maantuubu abi ugu jircsan yahay lugahaas ugu dhufto, laakiinse dagaalkii waxba iska bedelay. waxa weeye dhinacan waa kan Eritrea moogtay iyadoo reer galbeedka ka cabsanayso ciidamo soomay dirin, laakiinse ciidamada Ethiopia ay ku tiri xaggan Eritrea keena, kadibna dareyskiin baa loo xidhayaa dee moogtay ayaa la leeyahay ciidankii Ethiopia ayuunbaa loo xidhayaa kuwii Eritrea. halkaas bay kasoo galayaan dagaalka, waayo iminka ilaa 2,000 oo maxaabiis oo ciidamadii infantry-ga Ethiopia bay soo bandhigaysa TPLF-tu. waxay dadku leeyihiin marka way ka tababar sareeyaan ciidamada dhulka ee moogtay Ethiopia kuwa Tigreegu, oo ay 30 sano waddanka haysteen tababarada ugu badan iyaga ayuunba dadku ka siinayay baa lagu doodaa. kuwa haatan haysato marka xukuumadda Ethiopia waa laga tababar sareeyaa, laakiin kuwa Eritrea tababar aad u sareeyo cadaabay haystaan. saa darteed dareyskii ciidamada Ethiopia baa la soo xidhayaa bay qaar kalena ku doodayaan. aduu dagaalku wuu socdaa haatanna waxaabay u dhowdahay baa laleeyahay in maqalo la galo oo wararkii ugu dambeeyay caawana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidankii dhabarjabinta soo qaaday ee markaasi dhinaca Eritrea ka yimid ee ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea isku dhafka ahaa ay ku soo wajahan yihiinba Maqale, oo ay doonayaan markaasi in Maqale la isla yimaado. dib u gurashay samaysay TPLF-tii marka xaggan canfarta iyo axmaarada soo cararaysay. haatan waxaanay doonayaan inay difaacaan magaaladoodii iyo marka xagga dambe laga soo galay iyo dabadooda inay difaacaan bay doonayaan baa la yidhi. adoo si kasta ahaatee ciyaarta siyaasadda kolba shaxdan moogtay tanaan degay iyo tanaan degayduna way socotaa, xabaduna way socotaa, kolba dhinacii ay ku dambayso ayaynu eegi doonaa. barnaamijkan intaas ku dhayay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.